الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا ودن إسكالي عليه نصر تقلي إن المركلة إسأرغنا ولا ليال ما أنت وحان ربا inaan idinla qaybsada qiso yar oo gaaban oo macaan ah oo aniga aad iyo aad ii soo jiidatay. waan huwa haddii aad dhegaysatid inaad wax badan ka faa'iidi doontid, walaalaha iyo dadka kugu dhow aad jeceshahayna inaad gaarsiin doonto waa hubaa. haddaba qisada iiga hooya. qisadan waxay ka dhacday Dubai, Imaaraadka ayay ka dhacday. waxaa jiray nin taajir ah oo ilaahay hanti u sii wax caruur weligiis muusan dhalin, ma dhaliis way, xaas ma laha, hooyadiis iyo aabiis iyo walaalihiis way dhinteen, keligiisa ifka ka nool, laakiin hanti uu leeyahay, ilaahay hanti u sii. walaalayaal, maalin ciid ah habeen ayuu casumiyey shaqaalihiis oo dhan. wuxuu yidhi caawa anigaad ii casumantihiin isaas ula socdo. casho sharaf uu sameeyey, shaqaalihii oo dhan ayaa kasoo qayb galay xafladii. markii laiskugu yimid meeshii oo dadkii ay wada fadhiisteen ayaa wuxuu sameeyey walaalayaal, qof kasta hortiisa wuxuu dhigay kitaab qur-aan ah iyo xoogahoo lacag yar oo kuusan ayuu meesha dhigay. qof kasta labadaas hor dhigay. cuntadii markii laga baxay oo cashadii la cunay oo markaan oo la damaashaaday oo bixitaan ay noqotay ayaa wuxuu yidhi waad mahadsantihiin kasoo qaybgalka, aniga cashadan idinku casumay maadaama intaasoo sana aad ii shaqeynayseen inaan keliis idinkaga dhigo oo idinka farxiya ayaan jeclaystay. arrin kalena waan sameeyey oo waa idinla jeclaystay, waa hadiid u yiri. maadaama aad cashadii kasoo qayb gasheen ood igu sharafteen ood imaadeen, gacan eber inaad laabataan ayaan diiday. xoogahoo gacan qabsi ama hadiyadna waa idinkugu targal u yiri. sida aad ogtihiin uu yiri, qof kasta hortiisa waxaa yaala kitaab qur-aan ah iyo lacag ayaa hortiisa taala. markaasaa wuxuu yiri, maadaama bixitaan ay noqoto aad bixi rabtiin, hadiyadan qof kastaba shaygu uu rabo ha qaato yiri. ama kitaabka maad qaadan lahayd mise lacagtaad qaadan lahayd. walaalayaal, waxaad ogaataa labada shay liskuma qaadanay, hal shay baad qaadanaysaa. wuxuu yiri, ama kitaabka maad qaadanaysaa ama qur-aanka, macnaa qur-aanka maad qaadanaysaa ama lacagtii. wuxuu kaloo u raaciyay, hana iga xishoono yiri, walaalkiinaan ahay, intaasoo sana ay shaqeynayseen, qof cusub miihi, waxbaha isdhihina. haddii aad kitaabka qur-aanka aad qaadid ama ninkan shaqada kaa tara waxaas oo kale niidinaysa ugalna yiri. xuraa u tahay, kitaabkana waa qaadan kartaa, lacagtana waa qaadan kartaa, taasna la socdo yiri. walaalayaal, ninka ugu horreeyay ee hadda wuxuu ahaa ninka waardiyaha ee albaabka ilaaliya. ninkaasaa soo istaagay, wuxuu yiri, mudan horta waa mahadsantahay casho sharafta, aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa. aniga wuxuu yiri, maanta waxaan kitaabka ilaahay aan ka jeclanahay, wax maanta la qaatan isagaa ugu fiican, wax u dhigmana maanta ma yiri, waa kalaamka ilaahay ilaahay. laakiinse wuxuu yiri, aniga weligii qur-aan maba akhrisan yiri. qur-aan maba akhrisan, maba aqaani meesha laga maro, ba ita maba aqaani yiri. haddii kitaabka qur-aanka aan qaado waxaan ka faa'iida ma yiri. gurigun baa iska dhigaa moogiye, kitaabkan haddii guri aad dhigtid looguma targaleen in la akhrisaa loogu targaleen, akhriskana maba aqaani yiri. marka maanta waxa ay caawinaya keliya waa lacagta yiri, ee lacagtaan qaadana. waa mahadsantahay. meeshaasoo ugu baxay waardiyi meesha ugu baxay, lacagtoo la tagay, kitaabka qur-aanka waa ka tagay. qofka labaad ee soo raaca wuxuu ahaa qofka geedaha u waraabiye, ubaxyada u waraabiye. qofkaasoo ahaa geedahaasoo waraabiya
garden laha marka geedaha iyo ubaxyada meesha laga shaqeynayo ku yaal ayuu waraabiyaa subax kasta wuxuu yiri mudane waad mahadsan tahay casho sharafta maanta kitaabka quraanka ood maanta meesha soo dhigtay aad iyo aad ayaad u hagaajisay kitaabka quraankan maanta wax laga dooranayo ma yiri laakiinse hal daroofa jirto yiri xaaskeyga ay xanuunsan yiri haddii aysan jir lahayn xaaskeyga inaysan xanuunsaneen maanta kitaabka quraanka iswarsi ma lahaan lahayn inaan kitaabka qaato laakiin maadaama xaaskeyga ay xanuunsan tahay lacagna aan haysanin waxaan ku daaweyn aanan haysanin lacagtan aan u baahanahay waad mahadsantahay waxaan qaadanay lacagtan qaadanay war ninkii kalena wuu ka tagay kitaabkii lacagtii uu doortay isagana waxaa saddexay walaalayaal gabadha cuntada karis ee shaha ay cuntada u karis shaqaalaha ayaa ayadan ku xigtay waxay tiri mudane waad mahadsantahay casho sharafta aniga horta waxay tiri wiiligii runta baan sheegi jiray maantana runta baan jecel inaan sheego waxay tiri haddaba xaqiiqda jirta waxay tahay aniga waxay tiri waxaan jeclahay inaan joornaalka akhristo joornaaladan aad u jeclahay inaan akhristo waa kow joornaalkana maanta waxay tiri xafiiskan aan maanta ka shaqeeya gudihiiseeda cuntadii ishii shaqaalaha markaan u keenahay joornaalka meel dheer maba jiraba meeshaan oo saaran miiskeeda waqti aan ku akhristana joornaalkan ma lahay tiri agteyda waqtiga ayaa igu cariireeda oon ku akhristay joornaal waqti aan ku akhristaan waysanahe kitaab waqti aan ku akhrista oo gurigaada inta ka keenayta marka waxay tiri maadaama joornaalkii ii dhawaay waqti aan ku akhrista aan waayo kitaab quraan waqti aan ku akhristaba ma hayay waad mahadsantahay waxaan qaadanay tiri lacagta gabadha cuntada karanaysana waxay la kacday lacagtii qaadatay marka ugu dambeysay walaalayaal waxaa hadlay wiilka xoolaha u raacay ninka xoolo fara badan oo leeyahay xoolo badan oo leeyahay ninkan waa nin taajir ah lacag markii laga soo tagana xoolana wuu leeyahay wiila u raaca wiilkii xoolaha u raacay ee qowsaarka ahaa ayaa isagana isoo taagay wiilkan intuusan hadlin ninka taajirka ayaa hadlay maxaa yeelay wiilkan wuu si fiican u yaqaanaa dadkan kale ma yaqaan hoodooda iyo noloshooda waxaa ma yaqaan laakiin wiilkan yar ee xoolaha u raacay ciddooda taako u yaqaanaa isagana si fiican u garanaya wuxuu ogsoon yahay reerkooda inay waxba haysanin walaalayaal inaysan waxba haysanin dabkooda aan la shidayn uu ogsoon yahay wiilkan inuu dhibaataysan yahay uu lacag maanta wax uu kaga baahi badan inaysan jirin uu ogsoon yahay wuxuu yiri haddaba intaadan hadlin waan ku ogsoonahay adiga soomaha kuwan kale waaba ka aamuso yiri maxaa yeelay hoodood ma aqoon yiri adiga si fiican aan ku garanayo adiga lacag uma qaadanaysa soomaha yiri maxaa yeelay reerkiinaan garanaya adigaan ku garanaya koob hal sano u yaalaan dharka hal sano u yaala cidiina maanta waxa weeyaan inaad wax u gadartaa inaad casho fiican cidiina maanta aad u karisartaa soomaha yiri marka lacag uma adin qaadanaysa sida saaxiibada kale oo kale laakiin wiilkii walaalayaal isagoo baahidaas dhamaale ay jirta oo maanta shaqaalaha oo dhan ninka ugu baahi badan u yahay haddana dadka dhamaale uu ka yaabay walaalayaal hadal cajiib uu ku hadlay wiilkii wuxuu yiri mudane waad mahadsantahay horta casho sharafta yiri laakiin maanta kitaabka quraanka wax maanta adduunyada yaala oo laga doorsanayo ma laha horta mid kale wuxuu yiri aniga saas sheegtay weeyaano lacag maanta waxaan kaga baahi badan ma laha lacag waa jecel shayga ugu hore aan sameyn lahaa yiri inaan koobahan wajido yiri koobihiis waad duleen walaal koobihiisa way duleelaan waad garanaysaan qofka baadiyaha oo xoolaha ku raacay koobihiisa u yahay reer baadiyaha yaqaan si fiican wuxuu yiri maanta shayga ugu hore aan gadan lahaa waa koobahaas oo yiri
oo intaasoo sano kooba maanan gadan ma yiri midda kaleeta reerkayga caawa waan ka farxin lahaayo casho fiican u sameyn oo yiri maxaa yeelay iyagoo gaajaysan oo tabaalaysan ka sotay haddaba ayadoo daruufahaas oo dhan ay jiraan uu yiri kitaabka quraanka qaadan uu yiri cajiib 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 waa qofka ugu horeeyay oo dhahay kitaab quraan qaadanaya oo shaqaalaha ka mid ah daruufahaas oo dhan way jiraan uu yiri lacagtana oo waxaas oo dhan lagu furdaamin lahaa waa meesha ay saaran tahay ayadoo sidaas ay tahay uu yiri kitaabka quraanka qaadanaya sababta maxaa weeye yiri sababta kitaabka quraanka aan u qaadanaya waxay tahay yiri hooyadii hadalkeedan soo xasuusto yiri hooyadii waxay igu soo tarbiyeysay oo isoo bartay wiilkaygiiyo wiiliga kitaab quraan wax kale ha ka doornay inta hooyadii intaad adduunka joogtid aad nooshahay kitaab quraan iyo wax kale la isgarab dhigay kitaabka quraanka ha ugu tagin wax kale tiri sababta maxaa waaye dhahay hooyoy waxay tiri kitaabka quraanka waa kalaamullah ilaahay hadalkiisa weeyaan ilaahay hadalkiisana dahabku wuu ka qaalisan yahay malabkana wuu ka macaan yahay tiri hooyadii dahabkana wuu ka qaalisan yahay malabkana wuu ka macaan badan yahay marka shay malabkana ka macaan dahabkana ka qaalisan saan ugu tago yiri marka maanta maxaa yeelay lacagtan iyo kitaabkan wuxuu ka qaalisan yahay yiri dahabka lacagtan iska wada lacagtan dahaba ka qaalisan dahabka lacagta way ka qaalisan tahay kitaabka wuuna ka macaan yiri kitaabka ilaaha macaan sababtaas aan u qaadanay yiri wiilka walaalayaal kitaabka markuu qaaday lacagtan uu ka tagay saaxiibadiisna lacagta ay la tageen ayaa wuxuu sameeyay dadkii meesha joogan weli waa la tuuray ninkaas lacagta uu qaatay dadka oo dhan lacagta ay qaatay hal qof oo lacag oo kitaab qaatay la waayay laakiin weli ma bixino xafladda ma soo gabagabay mugtahay waa la joogaa dadku waa tuuray wiilkii waa qofku ugu horeeyay ee kitaabka quraan qaatay walaalayaal markuu kitaabkii qaatay isla markii uu furay isagoo kalaamka ilaahay rabo inuu arko markuu furay الله أكبر محو أرك متقن ولا يا محو أرك متقن سبحان الله والملك القدوس كتابك وسنا أفريبا لو بخشدت أو وين آيات حياله سبحان الله الملك القدوس لو بخشد مع خجر بخشد وهريس ويل ورت ونح مركو ما فيلمين إلى كتابك مع خجران وهو لها فر آخر سولها كتابك إلهي waxa ugu horeeyba dadkan hortooda roo inay kitaabka u ka akhriyo maadaama iyaga ay adduunyo qaateen hadee maxaa la akhrinaa ninku waa wiilku waa naxay markuu furay wuxuu arkay laba baqshad ugu horeyso furo walaal maxaa ku jira inta qana 10 jibaar lacagta meesha saarna ku jirta ya allah ya allah ya allah يا الله إلهي وقاتني كان إيجان الدنيا قاتل بخشد أوريسي طبعا جبار لعقتي ماشي تالي أيا كنت وبشارة فرحات كوي مجرتا ماي حاجة ديك فرحات كوي نصوص يا الله وامح فرحات وين بخشد لبعض وفرحت أنا بخشد لبعض وفرحت بخشد لبعض ولا رجال تيك هلا ويكدرنتها waxaa ku qoran ninkii kitaabki ilaahay doorta kitaabki ilaahay ninka qaata oo lacagta ka taga wuxuu leeyahay wuxuu noqonayaa dhaxal sugaha ninka ilaahay wax dhaxla ma lahayn kitaabka quraanka ninkii qaata waa ninkii xoolahayga iyo boqortooyadeedii ninkii dhaxli lahaa waa yiri ninka waa warqad saxiixan ninkii taajirka ahaa ee maalqabeenka ahaa ayaa ku saxiixan isagaasa garantiga bixiyay oo wuxuu leeyahay ninka kitaabka ilaahay doorta
waa ninkii beri aan markaan dhinta i dhaxli lahaa oo xoolahayga dhan ay ku wareegi lahaayeen. toban jibaarka maxaa ka daran lacagtaas ka daran waxaa ka daran xoolaha dhan dhaxalkana ka daran. markaasaa dadkii meesha joogay oo dhan madaxa qabsaday. waxaa la yidhi allah talba ayee iga hoos baxday nin kasta farta gacanta ka qalin walaalayaal. allah maxaan u qaadan waayay kitaabka qur-aanka, alla ilaahay hadalkiisa maxaan u qaadan waayay, alla maanta waa kaas intaasoo xoolaan qaadan lahay. nin kastaba dhafoorku mid qabsana, mid madax qabsana, mid afka qabsana. waa la yaab walaalayaal, dadka dhan waa la isku naxay. qaar oynaa ilmeynaya oo ka xun waxay sameeyeen walaalayaal. markaasaa ninkii oo hantiilaha ahaa kitaabka qur-aanka u furay, wuxuu aqriyay suuratul Maa'ida aayadda ku jirta. qaala rajulaani min aladiina yakhaafuna ancama allah calayhim udkhuluu calayhim albaab فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. آية سؤال وآيدي لبدي نين النبي الله موسى نمنكي مركي ديدين ومقالة فلسطين قدس قال مركي الله ديدين labadii nin ku soo hartay way oo mu'miniinta ah ee la dagaalay nabiilaahi ee la dagaalamay gaalada nabiilaahi Muuse iyo nabiilaahi Haaruun ee ka barbar dagaalamay. mu'miniinta kala dhan way diideen inay dagaalamaan. labadii nin mu'miniinta ah kaliya ee nabiilaahi Muuse iyo nabi Haaruun garab istaagay ahay. markay waaninayeen mu'miniintii diiday dagaalka waxay dhaheen inkaar qawiyin war idinka guuleysan doonee ha ka cabsanin nimankan fuliyaal waaye waa gaale aan la dagaalamno. maxaad u baqaysaa haddaan la dagaalamo oon sabarna yaa ilaahay subxaana wa tacaala guulowna siinaya. hana tawakal saartaan mu'miniinta ilaahay ha tawakal saartaan. ninka marka wuxuu ka dan lahaa intaas qaybta yar fatawakkaluu in kuntum mu'miniin intaas soo qaatay. wuxuu yidhi ninkii ilaahay tawakal saarta إلهي أيا كفر ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نينك إلهي توكل صارت إلهي أيا كفر مؤمنين تا إلهي هتوكل صارت أي كسوق الجبي ولا لا مركا فإذا القرآن كجرت أيام ماشي كقادرينا نينك القرآن إلهي دورتاي ولا لا مرنا ما نقول درسنا أنا إيوي ما بتاس شرط يا دجنينا haddii kitaabka ilaahay aad ku khasaartid ani igu imaam abaalmarina ku siin walaalayaal. abaalmarintaas way taagan tahay. kitaabka ilaahay qof qaatay oo ku khasaaro ma jirto. qof kasta wuu ku liibaanaa maxaa yeelay ilaahay hadalkiisa weeyaan. haddaba adiga maxaad dooran lahayd? waan hubaa aniga adigaba maanta lacagtaasaan doonan lahayn. ilaahayna wal cafi maxaa yeelay adduunyada qalbigeena ay ku weynta Soomaaliya walaalayaal. marsiiso baan keen lahayn. kitaabka quraanka maanta waxaa arkaystaan soon ilaa ka soon lan furay. soonka markuu dhamaado waa suminaya meel la dhigaa. soonka kale markii la gaaro la furaa. war soona soo dhawaaday hal soo qaado kitaabka. qaarkood waxay sameeyaan quraankii qurxinay ku samaystaan. guryaha loo qurxistaa bas meeshaas iska yaala lama akhriyo ma garateen. haddaba wixii kaloo faa'iido ah allah idin barkay idinka idin day soo qoro wixii faa'iido aad ka fahanteen. quraanka ilaahay isku ognahay inaan markasta ku dadaalna caruurteena aan barna anagana aan akhrisana. kitaabka walaalayaal inuu guriga ku yaal kaliya maaha inaad akhrisid weeyaan, inaad ku dhaqantid weeyaan. maaha inaad shumis oo meel iska dhigtid bis
maxaa yeelay haddaad shumis meel iska dhigto uu ku dacweyni biri wuxuu ku leeyahay ilaahayow ninkan kitaabka qur-aanka horta ima baran koo iguma camal falin ima akhrista adoo xujan laka adoo xujo kuu noqonaya kitaabka xujan laka aw xujan calayka wa ama adigoo kuu doodaya xujan laka wa ama adigoo kugu markhaati furaya uu ku dacweynayaaba xujan calayka wa marka walaalayaal qiso kaloo qur-aanka ku saabsan ayaa noo soo socda oo xalqada ku xigta qiso kalaan soo wada oo ayadan faa'iido badan oo ayadan qur-aanka ka hadlaysa tan waa qisada koowaad ee qur-aanka faa'iidadiisa ku jirta tu kalaa soo socota insha allah marka intaan ku kulmeyna xalqo kale هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما سنتم جزاكم الله خير